kulanti wacan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah inuu ku eegi doono abaartii dhawaan ka dhacday dalka Soomaaliya iyo waliba saameynta ay ku yeesheen jaaliyadaha Soomaalida iyo dawladaha caalamka. waxaanu la soconaa in jaaliyado badan oo Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool lacaga aad u fara badan inay aruuriyeen si loogu gargaaro dadka ku dhibaataysan gudaha dalka Soomaaliya ee abaartu ay saameysay. dhanka kalena dawladaha caalamka qaarkood ayaa taageero dhaqaale ah gaarsiiyay goobaha abaartu ay saameysay. dawladda Australia waxa ay ka mid tahay dawladaha lacagaha ku bixiyay abaartaasi si dadkii dhibaatada ay u gaadhay wax u helaan. waxaa la sheegaa ku dhawaad 20 milyan oo dollar in dawladda dhexe ee dalkan Australia ay heedaha aan dawligahan u marsiisay abaartii ka dhacday Soomaaliya. I was really thrilled that soon after we raised it, the government committed to $20 million to give us specifically to what was happening in Somalia. But that's not enough. That's not enough, and we need a lot more. But it's more than nothing, which is where the government was before. So taasna waxaa sababteedu lahaa Hani Axmed oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida qayladaan xoog leh ay gaarsiisay baarlamaanka Australia ayaa sababtay in mudanaha laga soo doorto Melbourne State oo ay hoos yimaadaan xaafado aad u fara badan oo Soomaaliya ay ku nooshahay. Hani oo kulankan ay isugu yeertay xildhibaankii laga soo doortay xaafadda iyo waliba qaar ka mid ah jaaliyadda waxa hadalkeedu ku bilowday. waxaan caawa ku furayaa oo halkaan aan u nimaanay in aan hambalyo aan u jeediyo Australia government in local hero ee iga dhigtay ayaa aniga caawa aan u abaabulay in aan iraahdo anigana thank you in aan iraahdo ujeedadaas way caawa martidaanayto sharafta badan leh oo halkaan fadhido oo igala soo qayb gashay in aan iraahdo thank you Australia. waxa waaye anigu mar walba waxaan saacideyn jiray dadka yar ee soo koraayo waagii hore lay baraan ka tirsanaan jiray laakiin markaan arko baarti yar oo soo koraayo aan arko gacan siiya kalama jecli waa suukay halkaan waxaan ka salaamayaa Prime Ministerka Michael Turnbull ayaan halkaan ka salaamayaa sharaf weyn ii ah caawa inaan baarlamaanka ugu hadiyeeyo kala dambeynta iyo wanaagooda. waxaan halkaan ka salaamayaa Greenka Partiga la dhaho oo sharafta mudan oo neighborkeena oo aadan u daadihiyo ayaan salaamayaa. waxaan kaloo halkaan ka salaamayaa oo salaan qaali aan u marayaa Labour aan salaan qaali u marayaa. waxaan kaloo salaan fiican aan u marayaa Liberalka. waxaan u marayaa oo kala salaan Independentiga. kulligood waa politician dadka u wada dadaalayo oo jecel inay horumariyaan wadankooda. mid kastaba midka kale waa nooga fiican yahay annaga qoladaan rabnaan taageeraynaa laakiin waa dadka yagi Australiana nahay wanaag iyo sharaf ayay mudan yihiin. saddexda qodob oo maanta aniga aan ka hadlaayo oo ujeedadayda ay tahay midda hambalyada ah. midda ku xigto waa bini'aadanimada. hambalyada waa idin sheegay intaas markaan hambalyeeyo Australia ay ka mid tahay yaan kale u hambalyeenayaa. waxaan u hambalyeenayaa halkaan gabar la yiraahdo Shukri Cabdi Koronto oo Faadmo Shuri ku magac dheer oo wasaaradda waxbarashada Garowe ka shaqeyso iyo wiil eedo u tahay Cabdiqaadir Jaamac la dhaho oo si habsami leh igu keenay markii aan ka codsaday sawiradii aan ku shirtagahayay baarlamaanka. waxa kale to markaasay toole aan haddana fadhin waayoon sawiro kale u dirsaday Maxamed Cabdullaahi Faraweyne oo reer Banduura oo wiil yar oo wanaagsan oo asaguna igu soo orday inuu ii keeno wax allaale wixii sawiro lahaayay oo qaxootiga siday dhibaatada u saameysay dadka. lama iloobaanay noqotay taariikh ay noqotay. anigu ma iloobin intii wax ila qabatay. nasiib wanaag meel walbaan ka sheegayaa inaanan kaligay waxba aan dhameyn karin sameyn karin ilaa aan helo dad ila gurmado. waxaan halkaan ka salaamayaa asxaabta maanta daris wanaaga ama ehelka ee igala soo qayb gashay meeshaan aan fadhiyo wanaageeda ee qiimeysay hadalka aan ku andacooday oon ira walaalayaal igala soo qayb gala midaan iloobi karmaa waa mid taabanayso. intaasay toole markaan ka soo gudbo waxaan u soo gudbayaa Baafo oo diyaar u ah. Baafo waa hilmaan badanahay. Baafo oo qaali ah oo mar allaala markii ma taqaanaa ii sheeg walaalkeen duubid aan u baahno uu noo imaanayo. intaas markii aan ka gudbo oo asxaabtii gurmadka ahayd aan ka gudbo waxaan u soo laabanayaa oon caawa halkaan aan ka taariiqaynayaa waxa la dhaho bini'aadanimada waxa la dhaho. bini'aadanimada aadan iyo xaawo
ayaa laga soo askumay dadku uu ka soo askumay waxa ay Australia maanta annaga noo qaadatay ama ay nagu wanaajisay ama annagoo dayacan oo baaba'san ay refugee camp ay uga soo qaadatay bini'aadanimada aadan iyo xaawo walaalihii ay noo dhaleen waa ayay nagu soo qaateen ma iloobin rafaadkii aan soo marnay ma iloobin taariikhdii aan soo marnay midda labaad intaasoo bini'aadana marka ay marisay ayaa waxa soo haray dawlad wanaaga iyo sharafka ayaan idin dhaadhacayaa dawlad wanaagu waa ismaqal iyo kala dambeyn annagu dalkeena kama soo cararnayn haddii dawlad wanaag ka jirto dumar aan nahay masaakiina oo baahan oo dhiban oo ilmo jiidaayo oo rafaadayo ragga daadiyayaasha ah haddaysan war fiican aysan maqlaynin kala dambeynna aysan jirin isku tanaasulna uusan jirin miyaan meeshaanay maanta imaan lahaa weligay Australia dreamkayga xataa ma ahayn anzaloti meel la dhahan ku dhashay oo macaan oo qabiil walbaba leh mixed ah dadka oo dhan nasiib wanaag dawlad wanaagu wax la heli kara maaha wax maalin walbaba dhalinyaro qasi karto oo ku dagaalami karta maaha caruurta hoostooda iyo dhalinyarada iyo hooyada baaba'ayso haddaysan u danaynaynin ninka kursiga rabay ee jaabka rabay inuu buuxsado laba bari madax inuu noqdo ya lagama yaqaan Australia waa lagu doodaa haddii dhibaato ay qabsato ama wax isfahan uu jiri waayo waa laga fariistaa dhaxdooda intuusan population ka maqlin ayaga ayaa xalliya si uusan wadanka faraha uga bixin marka waxa ku soo haray midda aniga markii aan lacagta dalbanayay oo dawladdaanay aan ka dalbanayay waxa dhacday 100 comments ayaa la qoray waxa iigu xigtay lacagtii la ogolaaday waa farxad labaad lacagtii markii la ogolaaday Soomaaliya loo gudbiyay 2 bilood markaan joogo rooba ii soo galay waxa uu yiri hani hero waa tahay aniga aan dhahay ani hero mihi aan dhahay ani hero mihi aan dhahay runta ku sheega ani hero mihi maxaan ku mutaysanaa Australia waxa u qabtay male xaqiiqda ani hero mihi roob ha hero qofkii ritiinsiya ani hero mihi aan ku dhahay because Australia maxaan qabtaan dhahay Australia حقيقة مركا أدي شيء وحي سامرة إذا كذا شكينا أنا هي رومي ودن كانت ولا جسني محالة لها value ولا ذا قيمة جوني ولا ذا أنا وحنا قيمة اسمه متيسن because ودن كوا إساق قلنا لبعتن إيشان سنة جوجا لبعتن إيشان سنة 3 سنة أو متقنا فلنتر وشقي ما هني عندها ولعيلة أقرأ إنا أشقي أو همبل النقض وهو البوقتان داي سهير أو الإيسينا يوم كلها مركز الله هني والجسيجي محك قطع أنا حواجي كان قطنا هيرو مربو والجوجي شكذي أنت أسمر كي نوت تاجن تهاي هبينك إلههم كوي وحن كنا إلهي جنة الأساس هيفن ما إسيس ذا يا ربي واحد عذي واحد إرمحاك يا شيء عن هيرو قال بالسويدي عن هيرو واحد سويدي واحد هنيي واجا ودن كجوكتي باورا وذنجري وصبحة gabar yaroo dayacan markaan arko oo Australia markaa soo gasho refugee ah oo alaab iska wadato meel aad garanay baabuurka u joojiya waa qaadaa liftiansiya waxaan dhahay intee u jeedaa markaas dhada emergency inta la iga sii markaas waxaan dhahay soo bax emergency ga alaabta la geeyo bari ku adeega abba habeenkii waxaan dhahay depression ku dhicin wadankan cidlo way kaligeed la soo gashay waa u sheekeeya waa wada marka waxaan irmarinay you deserve it ummad badan ayaa hoostaasay aad ka helbagarin jirtay marka ilaahay tiibu kugu abaalmarinaya ayaa igashay abaalmarin xaq rabbi ka timid oo la iigu soo dhiibay reer Australia ilaahay qafuur raxiim waxaan idin abaal sheeganayaa aadanow abaalkaaga ma iloobi karo waxa tahay mid aan iloobi karin wayna helbagareeyaan dadkii aadan iyo xaawo ka imaaday America diyaar waxaan ahay $100 ayaan u yaboohayaa inta Soomaali oo dhageysanaysan duufaanta iyo dabeesha qaaday walaalaha Soomaaliyeed ee Australia ku nool waxaan rabaa inay iyagana qof walba $100 oo iska soo qaado aadana waxaan weydiisanaynaa meeshii aan ugu shubi lahayn walaalaheen barakacay oo guryahoodii iyo baabuurtoodii iyo hantidoodii ku waayay annagana maalinteena inaan u kacno wixii America iyo Canada iga maqlaayo America shalay way noo gurmatay hal loo gurmada ayagana dabeel baa qaadee. A little while ago, Hani came to me and said that we've got to start taking seriously and start having a look in Australia at
the state of the drought in Somalia and across the whole region. And I'd been keeping an eye on what had been happening, but Hani brought to me a number of sort of first-hand reports about what this actually meant, like people's whole livelihoods being devastated. Not only no water, but that meant in many places no animals. It meant, of course, no crops. And so how are you meant to live? And of course, when even if you manage to be able to walk a long way, it's still exactly the same situation. And so the more that I spoke with Hani and understood the scale of what is happening, the more I became convinced as well that we needed to take action on it, because the level of understanding in Australia about the scale of the drought and the devastation and the displacement is probably not well understood. And I think we're starting to change that. We're starting to change it. You now have people in Australia understanding that right across the region in Somalia, but also right across the region, you have between 1 and 2 million children who are at risk of dying, right? Really serious. And people are now starting to understand this in Australia. And after talking with Hani, what we did was take the message to Parliament and raise in Parliament the need for the government to step in and act, because Australia is a wealthy country. Australia is a wealthy country. And Australia is also a country that contributes a lot to global warming and to climate change. And we have a responsibility, all of us have a responsibility. And I know Hani and many members of the Somali community here in Melbourne feel that very deeply, because we're talking about sisters and brothers and aunts and uncles and family and grandparents who are still living through all of this. Whether in Somalia or whether they've had to move and find themselves in a camp somewhere, people are still living through all of this. So we know that it is felt very deeply and very keenly here by members of the community, but it's our job now together to convince the rest of Australia that this is something that not only matters to the Somali community, but matters to everyone who cares about humanity, right? This is a question about humanity, and this is a question about whether we're going to look after people when they find themselves in trouble. And what can we as Australia do to help fix it, especially given that we are playing a role in making global warming, making climate change worse, which is going to mean more droughts, okay, and more famine. And so after talking with Hani and getting ourselves a lot more educated and informed, we went and raised it in Parliament. And I was really thrilled that soon after we raised it, the government committed to $20 million to give us specifically to what was happening in Somalia. But that's not enough. That's not enough, and we need a lot more. But it's more than nothing, which is where the government was before. So we know that there are big issues about making sure that money actually finds its way to the ground and doesn't find its way to someone else's pocket or an organisation that might then fly out of Somalia the next day. We understand that there are issues about making sure that the money comes to the ground, but we have to make the money flow first. And that's why we were really pleased to acknowledge that formally. And so I'd like to present Hani right here and now, if I can, with a formal recognition of the Melbourne Local Hero Award for 2017 for all of your amazing work. Thank you. Very well deserved. shahaadadani toole waxaan ku mutaystay markii abaarihii ay Soomaaliya ka dhaceen ayaan MB-ga u tagay dacwadii aan gudbiyay iyo lacagihii la helay oo Soomaaliya la geeyay ayaa markii dambe toole dawladda ay wada tashi sameeyeen wada tashigii ay sameeyeen ee waxay dhaheen gabadha baarlamaanka qayla dhaanteedii keentay ee Soomaaliya u qayla dhaaminaysay abaarihii wixii ka dhacay gabadhaasay toole waaba geesiyad waa inaan hero siinaa daas markaasay toole ayay dukaanka iigu imaadeen ayagoo sawirro wato waxay igu dhaheen Haniyey waxaan noqotay hero oo hero maxaan ku mutaystay markaas hero markay dhaheen ayay waxay dhaheen waxa ku mutaysatay abaarihii sida aad ma taqaan dadkaas u badbaadisay
intaa kadibna xildhibaankii laga soo doortay xaafadda soomaalidu ay u badan tahay ee qayladhaantu gaarsiiyey baarlamanka Australia si lacagta dowladda Australia u gaarsiiso Soomaaliya ayaa isna caawa halkan lagu abaalmariyay sidaad arkaysaanna waxaa loo xiray hidihii dhaqanka Soomaalida waxaanu halkan hadiyad qaaliya aanu siinaynaa Mr. Adam hadiyadaas oo ah hadiyad qaaliya oo ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan walaashayo Hani taasoo u garatay wixii boqoradayada lagu sharfi jiray inay ku sharafto walaalkaya Aadan oo ah nin zaciima oo Soomaali wax badan u qabtay oo aanu sharaf iyo qiimi agtayada kale oo aynaan gudi karin abaalkii uu u galay Soomaali hadday noqoto kuwa gudaha ku jira iyo hadday noqoto kuwii dalka joogaba marka waxaanu leenahay Aadan ku soo dhawow hadiyadan qaaliga ah oo aanu ku sharafno boqoradayada salaadiintayada ugaasyadayada marka waxaanu leenahay naga gudoon Aadan This is our Somali culture. Thank you. Yeah. Rob waa nin dhalinyaro oo u shaqeeyo ninka senatorka noo ah waa nin hawl badan nala soo qabtay waa nin macnaha bulshadana aad ugu xiran waa nin maanta u mahad celinayno waxqabadka uu soo qabtaan aan xuseyno marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ninka way ku faraxsan iyo aad u mahadsantahay dhammaan inta ka soo qaybgashay xalfadan wabillahi tawfiiq qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulankan ayaa iyaguna ka hadlay TV-ga University aad iyo aad u dhabar adayga meel kasta oo adduunka tacaladiisa ay ka tahana aad dadka shacabka Soomaaliyeed markay dalbadaan bareedi u noqda diyaar u ah barnaamijkooda soo jeediya yaa kale baafe Australia baafe waa mahadsantahay baafe waxaan kaloo aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa oo waxaan la ilaawi karin ugu hambaliyeynayaa Hani baan u hambaliyeynayaa hiilowga la sheegay waa Hani waxa weeye Aadan Open Australia waa aad iyo aad bay u mahadsan tahay Australiana waxa weeye waxay nagu leedahay aad iyo aad bay waxay noogu leedahay hambalyaanu leenahay ha jirto ha joogto ha waarto kala dambeynteeda iyo dastuurkeeda iyo aqoonteeda iyo caqligeeda ayaa Australia horumar ku gaartay annaguna waxaan rajaynaynaa inaanu gaarno haddaanu nahay Soomaaliya markaan idinka taariikh yar idinka sheego waxa weeye waxa la oran jiray libaha Afrika baa la oran jiray Soomaaliya markeeda kale to Soomaaliya hadda meesha la yiraahdo Malaysia mooska lagu cuno iyo saliidda lagu gado intaba waxa laga keenay Soomaaliya firigeedii baa lagu beeray Soomaaliya waxay ahaan jirtay waxa laga sheekayn karin maanta waxay tahay waxay leedahay beeray leedahay wabiyay leedahay macdan bay leedahay shidaal bay leedahay gaas bay leedahay waxa laala xoolay leedahay waxa laala waxa dunyo waxay lahayn Soomaaliya ma jirto waxaan naga dhex galay siyaasad baan dhex gashay halkaana keentay dawladda Australia aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa ma sha Allah dacambaro qeyr badan Allah siiyo aadan iyo kulli iyo dadka Soomaalida nagala soo qayb galay waxaan leenahay dhibaato kasta oo haday dhibaato maanta Australia gaarto ama dhalinyaro ay xumaato ama saqajaanimo ay samayso waalidiinta waxay uga naxaan ma seexdaan fakar ayay qabaan dadkiina soo dhaweeyay oo na wanaajiyay dhibaato in la geeyo waa abba qof walbaba uusan hurdo seexanin wallahi everybody waxaan dhahnaa maxaa cunugan xunka ah loo keenay marka waxaan leenahay Australia sidii saabuuntii ayay ilmaha mar u taraaraxaan waalidiinta in mar walba wax la qabto ayaan jecelnahay waxay jecel yihiin noloshay jecel yihiin waxay jecel yihiin wanaagay jecel yihiin marka waxaan jecelnahay Australia bal waxaan ka codsanaynaa awlaadda dhalinyarada ee soo kacayso ee sidii saabuuntii uga taraaraxaysa familiga soo koriyeen soo rafaadeen
bal in maaragtaa gacan fiican bal iyo il fiican lagu eegaa si ayaga iyo baarantigooda wax loola qabto annagana aysan ceeb noo noqon. marka ugu horeysa waxaan leeyahay assalaamu calaykum, waxaan salaamahayaa dadka muslimka gaar ahaan Soomaalida. halkan waxaan isugu nimid abaalmarinta Hani Cabdi Axmed oo ah gabadhii u dadaashay dadkeeda markay dhibaatada abaaruhu saameeyeen, jawaabtay baarlamaanka u dirsatayna si fiican looga soo jawaabay. barnaamijkii gaarka ahaana intaas ayuu ku egyahay. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Ibraahim Cumar Baafe, dhanka kaamirada iyo farsamadana waa saaxiibkay Shirwac Madaale. nabadgelyo.